بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada mar kale waxaan rabnaa inaan guda galno banalkeena labaad banalkan waxaan rabnaa inaan xooga ku saarno maadaama aragtideena weyn ee barnaamijkeenu xambaarsan yahay soona bandhigayo xoogana uu saaraya ay tahay akhriska iyo ogaalka waxaan rabnaa banalkan inaan xooga ku saarno akhriska ubadka iyo waalidka waxaan rabnaa inaan talooyin iyo aragtiyo soo bandhigno ilaahay idankiis aan kula noqonno ababinta carruurta si aan sare ugu qaadno akhriskooda iyo awooddooda akhriska waxaan ku bilaabayaa marka koowaad su'aasha ustaad xaaji oo in badan u soo joogay barbaarinta ubadka wax badanna dhacdooyin ubadka la xiriira iyo sida akhriskooda ugu kala duwan yahay marag u soo ahaa waxaan rabaa inaan weydiiyo ustaadka keebaa muhiimsan in akhriska ilmaha lagu baro iyadoo ay hooyadu sal u tahay iyo aabbuhu waalidku ay sal u yihiin oo ay ilmaha akhriska ka caawiyaan iyo in ilmaha akhriska xoogga lagu saaro iskuulka oo iskuulku uu noqdo meesha ilmaha akhriskiisa salka u ah waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno ma waxaa wanaagsan in ilmaha hooyada iyo aabbuhu akhriskiisa ay sal u noqdaan mise waxaa wanaagsan in iskuulka lagu haleeyo oo faraha looga qaado oo la yidhaahdo iskuulka iyo macallinku sal ha u ahaadaan ilmaha iyo awooddiisa akhriska soo dhowsta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay carwada bandhigidda bugaagta ee gobolka bari ee maanta lagu daahfuray magaalada Boosaaso oo soconaya 2 maalmood oo 4 bisha iyo 5 bisha runtii aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa dadkii soo qaban qaabiyay dhalinyaradii soo qaban qaabisay bandhigan iyo dhammaan khubarada ka soo qayb gashay oo kuwa safarka u soo galay iyo kuwa magaalada gudaheeda joogayba aad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay soo ajiibeen bandhiga uuna yahay bandhig aynu wax fara badan ka faa'iideyno oo buug fara badan lagu soo bandhigay oo la iibsaday iyo muxuu ahaayeen dadkii faraha badnaa ee khubarada ahaa ee meeshan ka hadlayay haddii aan marka su'aasha ina weydiiyey aan gudagalo ee ah ubadkeenna akhriskiisa saldhig ma waxaa keebaa fiican inuu saldhig u noqdo hooyada iyo aabbaha ilmaha haya mise goobta marka uu ka hormaraa ardayga kale ee ku eg keliya iskoolka ku eg marka sidaa daraaddeed su'aasha jawaabteeda waxaan ku soo koobayaa ardaygu waxbarasho ayuu ka helaa gurigiisa haddii waalidku mataqaanaa ay ku dadaalaan oo ay kabaan oo ay yihiin waalid waxyaqaana waana sababta mataqaan loo yidhaahdo in hooyadii aabbuhuba in wax bartaan ay fiican tahay iskoolkuna waxa weeyaan ardaygu waxbuu ku bartaayo wade waxa weeye waa meeshii farta loogu bilaabayay iyo aqoonta oo maalin kasta dee uu soo kalahayay aqoon iyo xiisada ka qaadanayay marka waxaan oran karaa labaduba waxay u yihiin ubadka akhrintiisa iyo qoraalkiisaba waxay u yihiin aasaas bay u yihiin haddii doonto ha la kala bato oo ha noqdaan in boqolkiiba la oran karo 60 waxaa iskale ama 70 iskoolka oo wax baraya oo wax siinaya inta kalena waxaa u kabaya waalidka u kabaya oo walna waalidku markuu wax yaqaano marka runtii labadoodu way dhamaystirayaan baan anigu oran karaa midna mid kale kama maarmo hal loo kala bato mooyaane aad baa mahadsan tahay ustaad aad baa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan marka xiga faadmo siiyo ayaamahan dambe waxaa aad inoo ku soo badanaya oo weliba arrin wanaagsan ah in hooyooyinku ay aad wax u baranayaan gabdho wax bartay ay qoysas samaynayaan
arrintaas door intee la-eg ayay ku yeelan kartaa saamayn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa ku ababinta ilmaha ee wax akhriska soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan bogaadinayaa oon dhiirigelinayaa oon u mahadcelinayaa walaalaha soo qaban qaabiyey bandhig buugeedkan quruxda badan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha intaas kadib hooyadu wax baratay dowr intee leeg ayay ku leedahay inay soo saarto ubad wanaagsan ama maaragtay ay dhan kasta ka dhisan wasaasaan filayaa su'aasha hooyadu inay wax barato oo nafteeda dhisto oo gurigeeda u samayso qawaacid iyo maaragtay kala dambayn iyo nolol ay ku horumarin karto nafteeda iyo ubadkeeda waxay noqonaysaa in ay soo saarto ubad wanaagsan oo dhan kasta ka dhisan dhan akhris iyo dhan caafimaad iyo dhan edaaba marka hooyadu inay wax barato muhiim bay tahay inay wax barato keliya ma ahane inay isdhisto oo mataqaanaa ay مثلا هذا waxaan u fadhino oo ka hadlayno waa akhris madashuna waa madal wax akhriseed ama buugaag lagu soo bandhigayo marka hooyadu inay ayadu nafteeda ama hooyada iyo aabaha labada waalidba ay naftooda ku tababaraan in ay maaragtay ay yihiin dad wax akhriya ama markasta noloshooda dhisa waxay soo saarayaan ubad wanaagsan oo dhan kasta ka dhisan marka muhiim bay tahay khaasatan hooyadu in ay wax barato nolosheedana dhisto oo nafteeda aad ay u dhisto waxa hubaa marka inay soo saarayso ubad tayo leh oo naftoodana anfacaya dadkoodana anfacaya dalkoodana anfacaya aad baa mahadsan tahay ustaad Faaduma Xubbi waxaan rabaa marka xiga inaan Dictoreyso Maryan oo ah qoraaga buugga hoggaan ubad aan weydiiyo su'aal waxaan rabaa inaan ka hormariyo su'aasha aan weydiinayo waxaan rabaa inaan weydiiyo talooyin waa maxay qaabka ugu fudud oo carruurta ka caawin kara in ay yaraan ku bilaabaan akhriska qaabka ugu sahlan iyadoo talo ku salaynaysa waalidka ina la jooga iyo kuwa ina daawan doonaba waxaan rabaa inay arrintaas focus fiican saaraan waxaan rabaa dictoreysaduna inay aad runtii buugeedana iyo waxyaabaha ay ku xustayna inuu qayb ka yahay baan filayaa waa maxay tallaabooyinka ugu fudud ee ilmaha ka caawin kara inuu xilli yaraan ah da'yaraan ah ku ababo akhriska soo dhow dictoreyso بسم الله دمانتي وادin salaamaya farxad gooniye bay tahay bandhigii koowaad ee gobolka ka qabsoomay gaar ahaan magaalada Boosaaso inaan ka soo qayb galo qabanqaabiyaasha waan bogaadinayaa dhammaantiinna waan salaamayaa qodobka haddaan u guda galo waxaan ku soo koobaynaa garaan 5 qodob oo kale in ilmaha lagu ababiyo akhriska kow horta waa in ilmaha isaga la baro sida wax loo akhriyo taasoo noqonaysa ilmaha in laga saxo higaad ahaan iyo akhris ahaan marka hore waxay sahlaysaa ilmuhu markuu garanayo sida wax loo akhriyo inaa u doortid mawaadiic ku haboon isaga heerka uu marayo oo la jaan qaadi karaysa marka labaad inay waalidku noqdaan kuwa iyagu wax akhriya akhriskooduna qorshe iyo nidaam uu leeyahay ay leeyihiin goobo ay wax ku akhriyaan iyo xilliyo ay wax akhriyaan
si ilmuhu uu dareemo maadaama markooda hore aan ciyaalku aad wax ugu fiirsan xilliga aabba wax akhriyi jiray weeye ama xilliga hooyo wax akhriyi jirtay ama markuu arko meeshii wax lagu akhriyi jiray oo kale isaguna is yiraahdo adiguna meel samayso ama xilligii buugga aabbuhu qaato ama hooyadu isaguna markaa uu isku dayo inuu ka qayb noqdo wax akhriska qodobka saddexaad in ilmaha loo dooro buugaag ku habboon heerka uu marayo una qalmaya garaadkiisa marka buugta u dooraysid oran maysid mowduuc hebel akhri ama waxa akhri marka hore meelaha uu gaadhayo sida qolkiisa fadhiga meelahaas oo kale waxa waajib ilmaha inaad u dhigtid buugaag garaadkiisa la heera markuu intaa haysto ma xukumaysid adigu mana jaangoonaysid buugga uu dooranayo dhammaan waa buugaag u qalma isaga ayaa ikhtiyaarka siinaysaa si uu kii uu rabo u akhriyo rabitaankiisa ayaa tixgelinaysaa marka rabitaankiisa tixgelisid waxa kaaga soo baxaysa halkaa waxa ogaanaysaa ilmuhu waxyaabo uu jecel yahay buugaagta hadduu juqraafiga ka akhristo kuwa ku saabsan kuwa mowduucyada ciyaaraha ku saabsan oo kale hadduu akhrisanayo waxa ogaanaysaa ilmaha waxa uu jecel yahay haddii aad laakiin cadaadis ku saartid tiraadi waxa akhriso buug xadidan u keentid laga yaabay buugga inaanu xiisayn rabitaanna aanu u hayn ta kale waxay noqonaysaa qodobka u dambeeya in tiknoolajiyadda wax laga akhristo iyaga qayb laga dhigo waxay arkayaan waalidkii ama qof kale weyn oo ka akhrisanaya moobeelka buugga oranaya buug hebel baan akhriyay iyagiina buug la siinaya gacanta laga akhriyay xiisaa gelaya waxay oranayaan waxba idinka dhiman ilmuhu bini'aadan la mida rabitaan walba leenahay bay leeyihiin wax walba in jawiga loo yar bedelo way iska rabaan moobeelkaaga oo kale inaad ku siisid buugaag isla sidii kuwii kale u qalmayo la heera taasina way ka saacidaysaa inuu akhriska jeclaado kuna awdo sidoo kale buugaagaad akhriday oo kale inaad uga sheekaysid sheeko hebel aan akhriyay sheeko xiiso badan baan buug ka akhriyay sheekooyinka uga sheekaysid isla markaa wuxuu jeclaanaya isaguna inuu wax akhriyo bal sheekooyinka laga sheekaynaya ka war doono si uu ogaado in buugta xog badani ku dugan tahay xikmado intaasaan kusoo koobaya ditoresada aad bay u mahadsan tahay waxaan rabaa markale inaan ku laabto ustaad xaaji waxaan rabaa muddaa ku soo jirtay bahda waxbarashada iyo ababinta ubadka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo heerka wax akhriska ardaydeennu xaggee buu joogaa gaabiska jira maxaa xal u ah labadaas su'aalood baan rabaa inaan isu ka saaro heerka wax akhriska ubadkeenna ardadeenna wax baranaysaa xaggee joogaa gaabis hadduu jiro maxaa xal u ah soo dhow ustaad bismi illaahi raxmaan raxiim waa run su-aashu waxay waa laba qaybood waxaa weeyaan heerka wax akhriska ardaydeennu xaggee joogaa iyo haddii gaabis jiro maxaa xal u ah runtii heerka wax akhriska ardaydeennu xilliga maanta lagu jiro haddaan ku salayno aad buu hooseeyaa marka xilliyadii hore loo fiiriyo aad buu hooseeyaa ardaydu akhriska waxaaba ka horeeya dhegaysigaa ka horeeya ardaygu markuu fasalka fadhiyo inuu wax dhegaysto baa marka hore laga rabaa markuu wax dhegaysto wixii ku adkaada buu macallinka weydiiyaa markuu macallinku uga jawaabana markuu galabtii gurigiisa ku laabto ama habeenkii waxbuu akhriyaa marka xilliga maanta lagu jiro waa su'aal aad u fiican runtii khayr allaha siiyo oo meesha ku jirta jawaab fiican oo waafiya in la siiyana ku habboon ardaydeenna maanta wax akhrisku aad buu hooseeyaa heerkay doonaan ha joogaan heerka dugsiga hoose dhexe ama sare ha joogaan ama heerka jaamacad ha joogaan aad buu hooseeyaa ardaydu maanta waxba ma akhriyaan xilligay wax akhriyaan hal xilli bay wax akhriyaan waa xilliga ay imtixaanada la soo dejiyo iyagoo uga dan leh keliya qaybtood indhahoodii mataqaanaa ay wax u dhintay marka wax akhriskeennu wuu hooseeyaa sababna waxa uu ah waxyaalaha
ardayda ka leexinaya wax akhriska ha noqdo musalsalada ha noqdo social media-da ha noqdo garoomadan cagaaran oo gelin hore iyo gelin dambe iyo habeenkii oo dhan iska furan habeenkii adoo hurda labada habeennimo daaqadaha kuwa maraya arkaysaayoo kaftamayo oo leh adaan naga badiyey mar damba nala safan maysid marka waxaad dareemaysaa xilliga lagu gaaray kubadda baad dareemaysaa marka runtii cilladahaasoo dhan baa jira wax akhriskeenna wuu hooseeyaa arrimaha aan sheegay baana sabab u ah midda kale wacyigelin guud oo dadka lagu wacyigelinayo muxuu ahaayeeneen lagu wacyigelinayo wax akhriskana ma jirto arrinta aan ku soo gabagabaynayo oo dhibaatada weyn ah oo wax akhriska sii dishay waxaa ka mid ah dee qofkii wax akhriyey oo wax badan akhriyey oo xogtu ka buuxday iyo qofkii aan waxba akhrin in muxuu ahaayeeneen macluumaadka qofka macluumaadka uu akhriyey in lagu tixgeliyo qofkan waxa weeyaan buug muxuu qoray macluumaadka uu jeedinayo oo hayo intee la eg tahay waayo qofku ka taqaana ka macluumaad badan yahay macnaheedu waxa muuqata inuu ka wax akhris badan yahay marka runtii waxa weeyaan in dadka macluumaadka ay la tixgeliyo in ma taqaana dhiirigelin dawladda iyo bulshadu ay sameeyaan in muxuu ahaayeeneen dadka wax akhriyey oo macluumaadka haya in mudnaanta la siiyo runtii waxyaalahaasoo dhan xalka ka mid waxaa kaloo xalka ka mid ah in la sameeyo goobo wax lagu akhriyo sidii tii maanta halkan laga sheegay oo kale in la sameeyo maktabad weyn oo wax akhriska ma taqaanaa lagu dhiirigelinayo waxaa kaloo xalka ka mid anigu aanu arkaa in waxbarashada lagu daro buug ma taqaana buug kabida oo wax akhris ah oo la yidhaahdo buugtaas la dhigi maayo tusaale ahaan waxa buugtaa la dhigi maayo soo akhriya imtixaankan oo ku jiraan oo kale haddii ardayda la yidhaahdo waxa weeye waxbay akhrin lahaayeen ninka qof kastaa waxbuu akhrin lahaa marka runtii inahaasaan ku soo koobayaa ustaadku aad buu mahadsan yahay waxaan rabaa inaan halkaan idinkana idinkala wadaago maktabadda akhriska ee boosaaso dhowr jeer baa halkaan laga sheegay oo lagu celceliyey ustaad cabdulaahi cali cartan oo ina kala jooga golaha deegaanka iyo dhammaan akhyaartii kale ee barnaamijkan qabanqaabadiisa qaybta ka ahayd haddii barnaamijkaani dhammaado waxaa loo madlan yahay qabanqaabada rugta akhriska ee boosaaso intaa kadib rugla'aan ma ahaan karno si ilmaha akhriska loogu ababiyo iyo guud ahaan ardaydana waxaan u baahannahay il wacyigelintu ka soo burqato oo ardayda laga jiheeyo hadda waxaa socda buug raysinkii oo qoraayo tiro badan ayaa buug ugu deeqay maktabadda waan rajaynaynaa qoraayada kale ee nala joogana sidaasoo kaleeto inay buug ugu deeqaan oo aan kala wareegna ilaahay idankiis sa'ana aan hawshaa u galno aad baa mahadsantiin waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale faadumo xubbi oo ay xoogaa wakhtigana waa ku dheeraanay aan soo koobno isticmaalka qalabka elektarooniga ah ee waalidku uu daa'imo inuu ilmaha ku ciyaarsiiyo waa maxay saamaynta xun ee ay ku yeelan karaan akhriska iyo ku ababka ilmaha inuu akhriska ku ababo maxaa badiil u noqon kara waalidku hadduu rabo inuu ilmihiisa akhriska ku ababiyo electronic deviceskiina uu la qabatimay maxaa ku tarin lahayd ilmuhu waalidku inuu uga jaro oo uu badiil uga dhigo soo dhow faado aad u mahadsantahay qalabka elektarooniga ah ama waxyaabaha dhammaan social mediaha dhan waxay munaafis ku yihiin ama tartan kula jiraan waxyaabaha qofka caqligiisa kor u qaada ama ha yaraado ama ha weynaado saacadaha lagu luminayo iyo maaragtay qaabka loo isticmaalayo iyo waxay ku xirantahay waliba wax laga isticmaalayo gameka ay ciyaalka ciyaaraan qaar badan oo waxaa jira ama dhammaantiisba waxaa la dhahaa xitaa wax daawashada isagaa ka saamayn badan
oo ilmaha dakaagiisa ama maskaxdiisu inay korto oo faham fiican u yeesho qayb badan buu ka qaataa oo fahamka ilmaha dib u dhigaa marka runtii waxyaabaha elektarooniga ah oo ilmaha lagu ciyaarsiinayo uma fiicna korriimo ahaan dhanka maskaxda ubadka waalidkuna waa inay ogaadaan waxaan inuu dhibaato u keenayo ilmaha dadku way daraaseeyeen guud ahaan social media ilmaha say u isticmaalayaan da'day ku bilaabayaan saacadaha isticmaalayaan geemamka nooca isticmaalayaan iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin annaga maadaama cid wax noo kala saarta iyo aysan jirin cid ama dawlad ha ahaato ama xitaa wacyigelinta ay aad u hooseyso runtii aad bay ilmaheenu ambad u yihiin qudwo fiicanna ma haystaan cid u fikirtana ma haystaan marka cumuuman waxaan ku soo koobayaa qalabka elektarooniga ah oo ilmaha ay ku ciyaaraan geemka ama xitaa filmaanta kartoonka ah oo ubadka lagu maaweeliyo ayaga naftirkooda waxyaabo badan baa la socda oo mabaadi'da islaamka ka hor imaanaya geemkii oo kale saan sheegnay ilmaha dakaagiisii buu hoos u dhigaya ama fahamkiisii marka runtii waxaa la qaatay inuu ilmuhu maanta bannaanka ku ciyaaro qorraxda ah oo maaragtay uu dadka la falgalo oo kubad ciyaaro oo maaragtay saaxiibo samaysto intuu maanta dhan telefoon ku fadhin lahaa oo maaragtay uu ka ciyaari lahaa game ama wax ka daawan lahaa aad bay u mahadsan tahay Faadumo waxaan soo gabagabeynaynaa doodeenaan panelka discussion-keenaan soo gabagabeynaynaa hal arrin aan ku soo gabagabeynaynaa waxaa la yidhi bandhig sidaan oo kale ah baa dib loo eegay oo waxaa la yidhi bal wixii bandhigaas ka qabsoomay dib ha loo fiirsho baa la taxay marka nin baa taxay oo wuxuu yidhi ustaad faarax la yidhahdaa saaka iiga shekeeyey bandhigaas intaasoo beegaraa laga iibsaday intaasoo kookaa laga iibsaday intaasoo kafeeyaa laga iibsaday kun baa la tiriyey marka 1,000 beegara 2,000 oo kafee ah 1,000 coca-cola ah iyo 16 buug marka bandhigeenna ma rabno bandhig beegarka la iibsaday uu ka badan yahay buugaagta la iibsaday inuu noqdo waxaan ku baaqaynaa in carwada buugaagta la booqdo buugaagtu qiimo jaban bay ku yaalaan laga faa'iideysto lana muujiyo magaaladu inay tahay magaalo wax akhris intaasaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenna waa u mahad celinayaa ustaad xaaji Faadumo iyo Dr. Maryam aad baa idinkuna mahadsantihiin